Si kadis ah baalka diyaaradda ayaa bilaabaya inuu dumo. Mina neef bay qabataa oo si tartiib ah bay ugu taaganaysaa baalka. Way og tahay inay dhaqaaqdo ka hor intuusan gebi ahaanba jabin. Waxay u baahan tahay inay gaarto dhammaadka kale ee diyaaradda. Haddiiba ay ku dhacdo 100 mitir oo jeesh jareerka ay biyo dhaco ku jiro, taas waxa ay ka dhigan tahay geeri huban. Mina halis bay u gashay oo xoog bay ku oroday. Way sare u boodaa oo waxay ku guulaysataa ilbiriqsigii ugu dambeeyay. Baalkii wuu si buuxda u go'ay oo wuxuu ku lumaa biyaha huradleyda ah. Mina si cad ayay u argagaxsan tahay. Way adkaysataa oo si dhib ah u bilaabataa inay fuusho. Markaasay aragtaa dalool ku yaala jirka diyaaradda. Iyadoo feejigan ayay si dhaqso ah gudaha ugu gashaa. Dadaalka daran ayaa jirkeeda oo dhan dabinaya. Kadibna soo gaaban ayay aragtaa bir ka soo baxaysa oo agtida yaalla. Iyadoo aan ka labalabayn ayay xadhigga uradkeeda ku duubaan ku ruqdaa. Laakiin isla markaas diyaaraddii dhaawacantay ayaa haddana u bilaabata inay dhaqaaqdo iyadoo uu webigu riixayo. Si kadis ah bay dareentaa gilgilasho kale, waqti ma jiro. Mina waxa ay isku qabsataa degta iyadoo xooggeeda oo dhan adeegsanaysa. Laakiin khatartu weli ma dhammaan. Daqiiqada xigta ayaa diyaaradda